السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود مال كستو aad dunida ka joogtid hadii maalin ay ku tahayna waxaan ku leenahay maalin wanaagsan hadii habeen ay ku tahayna waxaan ku leeyahay habeen wanaagsan hadii galab ay ku tahay galab wanaagsan hadii subax ay ku tahay subax wanaagsan soo dhawaada halkan waa Kacab Media YouTube channel keena hadii aad nagu cusub tahay waxaan ka codsanaynaa inaad nagu dhiirigelisid inaad subscribe saarsid gambalkan aad footo like commentiga asxaabtaadana aad la wadaagtid waa maasan tahay soo dhawaada asxaabay sida hordhaca muuqaaladii hore aan leeyahay sheegnay waxaan u bedelnay Kacab Media qaab muuqaala oo haduu ay biraado barnaamijyo xiiso leh iyo sidoo kale waxyaabaha aan isleenahay dadka nagu xiran way xiisinayaan ayaan soo gudbin doonaa haduu ay biraado maanta waxa wada muuqaal cusub hada muuqaalkan wuxuu noqonayaa 7 qodob ayaan sheegayaa 7daas qodob hadii aad isku aragto jacayl baa ku haya marban sababeen kulli waa dareemi doontaa 7 qodob dhan xataa ma hadii 2 kamid ah ama 3 kamid ah ama xataa raado hal kamid ah isku aragtid waa lagu galay qofka aad jeceshahay iyo maartay gabar haday tahayna qofta aad jeceshahay jacaylka u sheeg hala degdegin cabsan waxa waa sheega jacaylkaaga tobadan qodob waa ku xasaasiya oo aan ka soo xignay daraasado lagu sameeyay arrimaha jacaylka oo ka hadlaya ayaan ka soo xulnay dhamaanteen bini aadan ayaan nahay wax waa jeclaan karnaa annagana waan la jeclaan karnaa dhamaanteen bini aadan ayaan nahay wax waa jeclaan karnaa waan la jeclaan karnaa laakiin waxa muhiim ah inaan ogaano sifooyinka iyo sidoo kale calaamadaha jacaylka uu leeyahay inkastoo abwaano Soomaaliyeed fanaaniin iyo sidoo kale dadka shirba ay wax uun ka yiraahdeen arrimaha jacaylka laakiin waxa jira 7 calaamood oo khubarada arrimaha jacaylka ku takhasusay ay masiihiin in 7daas qof hadii aad isku aragto in aad jacayl uu ku galay isla markaana jacayl uu ku qarsan yahay qodob koowaad waxa weeye in aad xusuus badan aad la imaato xusuusta badan tusaale ahaan qofka adiga aad jeceshahay ama qofka niyadaada ku jira markasta waad xusuusanaysaa hadii aad arday tahay adigoo goobta waxbarashada joogta ayaad xusuusanaysaa hadii aad shaqaynayso adigoo meesha shaqada jooga ayaa qofka niyadaada ku soo dhacaya hadii guri joogta aad tahay oo ciyaalka xaafadda iska tahay adigoo kubadda banooniga xaafadda ku ciyaaraya ayaad maanta xusuusanaysaa waa mid kamid ah calaamadaha jacaylka lagu garto qodobka labaad ka sheekeynta qofka waxa uu la mid yahay in qofka aad jeceshahay waayo sababtoo ah qofka aad jeceshahay markasta waxaad ka sheekeynaysaa wanaagiisa iyadoo aad ugu sheekeynaysaa asxaabtaada markii ay kula joogaan ayaad ka sheekeynaysaa marka ka sheekeynta qofka iyo soo hadal qaadka qofka waxa la leeyahay waxay ka mid tahay calaamadaha jacaylka qodobka saddexaad markii aad aragto qofka aad jeceshahay oo wadnaha uu ku yiraahdo jug 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 dad badan baa isla qaba qodobkan oo tusaale ahaan markii aad aragto qofka aad jeceshahay run ahaantii waa naxaysa khubarada arrimaha jacaylka waxay leeyihiin waxyaabaha lagu ogaado jacaylka dhabta ah waxa kamid ah in qofka aad jeceshahay markii aad aragto aad isku naxayso waa jacaylka xaqiiqada ah marka calaamadan waxay muujinaysaa isla markaana ay xoojinaysaa in jacayl uu ku galay hadaba adiga idaawanaya weliga qof inuu ka hor yimaado ama gabar ha noqoto ama gabar hadaa tahayna wiil ha noqdo ma naxday hadii aad naxday waxa ku haya jacayl waxa xaqiiq aniga ku dhahay qodobka afraad waxa uu noqonayaa la kulanka qofka oo aad u danayso la kulanka qofka aad jeceshahay oo si weyn aad u danayso tusaale qofka waxaad raadinaysaa markii aad xaafadaada joogto ama gurigaada markaad joogtid waxaad danaynaysaa in mar qofkaas aad hor fadhiisato hadaba waa qayb kamid ah calaamadaha jacaylka lagu garto hadii aad raadinaysid qofkina la kulanto waa qayb lagu garto calaamadaha jacaylka qodobka shanaad waxa uu noqonayaa qofka adiga aad jeceshahay indhaha uma dhameyn kartid tusaale qofka markuu ka hor yimaada indhahaada kuma qaban kartid oo indhahaaga markii indhihiisa ay qabtaan hoos ayaad fiirinaysaa ama geesaha ayaad fiirinaysaa marka Soomaalidu waxay tiraahdaa in jacayl isma eegi karaan marka hadii aad qofka u dhameyn wayso indhaha
oo indhaha aan ku qaban karin jacayl ayaa ku hayo waana calaamadaha ugu muhiimsan ee aan soo xilnay oo lagu garto arrimaha jacaylka. qodobka lixaad waxa uu noqonayaa qofka adiga aad jeceshahay wax walba uu isaga u nacban yahay waad ka ilaalinaysaa. dhibkiisa waa dhibkaaga, wanaagiisana waa wanaagaaga. marka haddii aad la doonaynin dhib qofka aad jeceshahay, hadduu xataa kugu daadiyo ama aad maartay xiriir wanaagsan aad lahayn oo kor aad ka eeganaysid, waxay la mid tahay in qofkaas aad u qaadi jacayl ee u sheego. qodobka toddobaad ee ugu dambeeya waxa uu noqonayaa in aad ka agdhawaatid qofkaasi. ka agdhawaashaha waxa uu yahay mid lagu garto calaamadaha qofka aad jeceshahay, waayo markasta waxaad dareynaysaa qofka aad jeceshahay inaad meelaha ay ka dhowdahay xitaa aad raadisid. gabar haddii tahayna qofka ay jeceshahay waxay jeceshahay in meelaha uu ka dhow yahay ay ka raadiso. xitaa waxaa jira dad badan oo xitaa arday ah ama dadka dhalinyarada ah, markii arrimaha bulshada aan ka hadlayno, in qofka dhalinyarada ah qofka hadduu jeclaado tusaale ahaan oo laba iskuul ay kala dhigtaan, xitaa waxaa macquul ah iskuulkuu dhiganaya inuu kasoo gooyo oo qofta iskuulka ay dhiganayso u imaado si uun u og dhowaado oo uu arko markasta, maadaama iskuulkii hore uu kasoo gooyay. tusaale ahaan ayaan usoo qaadanaynaa waa ka agdhawaashaha qofka, waa qodobka toddobaad ee ugu dambeeyey. qodobadaas aan soo sheegnay oo toddobada ah, haddii aad isku aragto waa hubaal in jacayl uu ku galay islamarkaana jacayl uu ku hayo. waxaan ku leenahay adiga i daawanaya ama iyada i daawanaysa, rag iyo dumar ahaada, haddii qodobadan mid kamid ah isku aragtaan jacayl ku hayo, marka qofka niyadaada ku jiro hadda horumar ballaaran la gaaray. Soomaalida markii hore waxay sameyn jirtay in jacaylka warqado lagu qoro, laakiin hadda aalad waxaa jirta oo inta badan dadka ay ka wada xiriiraan oo baraha bulshada ah. waxba la daahin messengerkaaga, whatsappkaaga, emailkaaga u dir waa ku jeclahay dheh. kulley waxa waaye waxyaabo kale ayaa kala kulmi doonta. mowduucan kan xiga waxa uu noqon doonaa qaabka qofka loogu shaqaansado baraha bulshada ayaan eegi doonaa hadduu ay biraahdo, iyadoona qodobo dhowr aan soo qaadan doono xasaasi ah. dad badan baa ku dhiban in baraha bulshada ay shukaansi ay ka sameeyaan. waxaan dadka bari doonaa qaabka baraha bulshada loogu haasaabo ama loogu shukaansado, maadaama markii hore taleefano iyo sidoo kale warqado isku qori jiray, laakiin waxaan rabnaa inaan la jaaqaadno casriga hadda adduunyada oo aan dadka barno qaabka la iskugu shukaansado baraha bulshada. waa bahdii Kacab Media oo idin leh sidaas nabadgelyo. subscribe ta iloobin, like, commentiga, asxaabta la wadaag. soo dhawaada asxaab.